maalin dhaweetaan sheegay nin odaya ayaa jamaacad ku yiri kaalay ma aragtaan ilmahayga baa iga xanuunsan igu soo duceeya xaafadii markay tageen waxay u tageen curadkii odayga wiilkii uu dhalay oo afarta adima silsilada kaga xidhan yihiin marka isaga ka saara saxarada isaga ka maydha timaha isaga ka xiira ya sindhada iyo xaarka isaga ka gura cuntada isaga seesiya odayga albaabka ma dhaafi karo hadduu albaabka dhaafan kan waa nin weyn oo xoog leh dadka xaafadda joogo dhan u leynaya markaasuu yiri war 7 sano buu odayga 7 sanadood aqalkayga irida ma dhaafin buu xataa salaada halka geedka sida ku tukada buu maalinta jumcadina dad kale yimaado iga hayo markaa aan jumcada tagaa buu yarka igu duceeyay ilaahay inuu caafimaad siiyo waa loo duceeyay jamaacadku waa u duceeyeen laana daaima jamaacadadu markay magaalooyinka yimaadaan dadka bukay bay ziyaartaan dadka ma aragtaan madaxda ziyaartaan culimada ziyaartaan caamada ziyaartaan nabigeena yiri kaleey salaatu wasalaam man aada mariidan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawata min aljannati manzila qof walaalkii oo xanuunsan soo ziyaartay buu nabigu yiri qof buka u soo duceeyay qofay alla dartii ku walaaloobeen ilaahay dartii u soo ziyaartay samada ayaa laga dhawaaqaa malag baa samada ka dhawaaqayo oranaya waad wanaagsanaatay socodkaagaasina waa wanaagsanaaday jannadana manzil baa ilaahay kaaga diyaariyay yakoo xadiista ilaalinaya jamaacadadu ayay dadka magaalada ziyaartaan marka yarkii u soo duceeyeen bay ka naxeen odayga rafaadka ka muuqda iyo ma aragtaan murugta ka muuqata wuxuu yiri inankayga dhibta ku dhacday ma u jeedaan ha aniga ga dhacday buu aniga buu maalin uu iga careysiyo waxaan ka idhin uu yiri inkaar ku dhacday inkaartii baa ku dhacday buu ka madaxa laga galay buu khalaas uu waashay dhibtiisina aanay igu soo noqotay buu aniga saxarada ka meeday buu albaabka ma dhaafi karo 7 sano albaabka kama bixin buu ridaas marka ciyaalka yaan la habaarin ciyaalka waa loo duceeyaa waa loo dhibriyaa waa la tarbiyadeeyaa tarbiyada islaamka inaan qaadano weeyaan ha muslimku akhlaaqdiisu waa inuu gurigiisa la kula noqdo qofka muslim oo nabigeenu kaleey salaatu wasalaam waa kii oran jiray akmalul mu'minina iimanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaa'ihim wa ana khayrukum li ahli nabiga sallallahu alayhi wasallam mu'miniinta kuwa iimaankooda uu noqday kamaalka uu gaadhay waa kuwa dabeecadda wanaagsan oo rasuulku yiri kuwa mu'miniinta ugu khayr badanna waa kuwa reerahooga u khayr badan anana reerkayga u khayr badan buu nabigu yiri akhlaaqda wanaagsan aad leedahay iyo naxariis wanaagsan haddaad leedahay baa la yiri dadka ugu xaq la inay arkaan waa ma aragtaan waxa weeyaan ma aragtaan waa ehelkaaga labada dhalinyaradana waxaan oranaynaa shaabun nashaa fi taa'ati allah nin dhalinyaro ah oo dhalinyarnimadiisa ilaahay daacadiisa ku ababay oo ku barbaaray waxa uu ka mid noqonayaa todobada ilaahay qiyaamaha hooskiisa ugu hoos hareeyo ninka dhalinyaradana waa kii nabigu lahaa kaleey salaatu wasalaam birru aabaakum tabarru abnaakum baa nabigu hadaa labadiina waalid u samafashaan inikana ku adasheen bay inii samafali doona buu rasuulku yiri rida allah fi rida alwalidayn ilaahi raali galintiisa waxay ku xiran tahay buu nabigu yiri labada waalid oo la raali galiyo waalidkaaga raali gali saxaabiga la oran jiray taabiciga Urwa bin Zubayr Allah raali ka noqday ayaa waxa la hooyadii Asmaa ayaa la Urwa nin caalim abu ha oo rabbaaniya hal maalin baa lagu yiraahdo hooyada waad jeceshahay baarina waad u tahay nin ka baaraysan anagu ma arag nin adiga hooyo kaaga baari badan maan arkine hal maalin hooyada adoo cunto la cunaya laguma arkin sidee ku dhacday baa lagu yiri wuxuu hooyada cuntada waxaan la cuni waayay baan inii sheegay waxaan ka baqay buu yiri luqmada ay tamacda in iyadu qaadato inaan ka hor qaato ka hor cuno oo inta caaqil waalidey ku noqdaan ka baqay buu taasaan goonida ugu cunaayadana goonida ugu siyaabo maalintay dhimatayna sida ilmo yar uu ooyay baa leeyahay markaas lagu yiri nin yow geeridu waa xaq sida loo ooyana ma banaane nin sheekhana waa tahay oo ummadda nabi maxamed baaba ka dhintay kaleey salaatu wasalaam ummaddu ay weydee waa maxay ooyinta sidana hooyada aad ugu ooyeyso wuxuu geeridu waa xaq weeyaan hooyaday maaha waxaan dhimashadeeda la ooyayo laakiin albaabadii jannada looga galaya kamida ayaa iga xidhmay buu maanta waalidku baarinimada waalidka loogu baaray sameeynaya waxa lagu mutaystaa
albaab gaar oo jannada ku yaalla ayaa jiro oo dadka labadooda waalid ama mid ka mida baariga u ahaa ay ka galaan ayaa ilaahay ugu talagalay marka albaabkaasaa iga xidhmay buu marka aniga marka waalidiinteenna ha ka ducaysano hanu khidmayno ha raalli gelinno walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلهي بقرآن كي نوغو شيغا قابك والدك الله لدق مايو أفضى يرو كلمة والدك إن هذو استعمال شماها ولا تنهرهما نبالي وامحي ووجهك إن يسبدل بكارك لبدا هذا والد أركي كلها الليان أي أمرك الصينيان اسكدا الدين مدى قلبك إن هتكديد اسكدا وجهك إن هتسي وجهك إن هذا وحن الدين أمر كودا مرحبا أونهاي مرحبا مرحبا أب مرحبا هوي مرحبا وايهي مرحبا أونهاي هذا لبدا هذا والد مرحبا آتريادد كواد هذا كنا دش مرحبا بكورنا ينوغو يعني لبدا والد أياك أكو تبعي سيبه هو يده سقال بلودنا علوش يدات كجرتي لبا سنة ندبر كيك آيات صارنيد من مالين تدمني سيد أما أدو أذكر لمن أما يدو كاهر لمنه وأويل كيجي أرادهم بكوهين adoo 60 jir oo 70 jir ah on baa kan waa garab dambayskayga iska eega hooyada ilaahay baa naxariista inoo galiyay waxaan iyada siino ayay ubadkayga dib u siinaysay ilaahu ku naxariiso markaasaan hooyo waxaan adaan ku keenay adaan ku soo diray anu da maxaan ka dhigay oo ciyaalkan siinayaa adoo konton jir intee madaxa ku qabatay ku oran waa kanoo sallidna looma mariyo islaamihiisa war kama hayaan ilmaha iga yara dhashay ya allah hooyada abaalkeeda lama gudi karaayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo yidhi saxaabada yaa rasuulallah dadkayga ehelkayga qofkee aniga igu xaq la bali sheeg markaa buu nabigu yidhi hooyo haddana buu ka yidhi markaasuu yidhi hooyo mar saddexaadna u weydiiyey hooyo markii afraad buu nabigu yidhi aabbo maxaa saddexda nabigu hooyada u sheegay laana hooyadu tacabka ilmaha ay la soo martay aabuhu lama soo marin aabaha sifadiisu waa adayg hooyada sifadeeduna waa raxmad sagaal ciyaal haday hayso oo kala dabeecad yihiin mid walba iyadu mid walba way raali gelin mid kasta hadii la yiraahdo hooyo ubadka ay ugu jeceshahayna wuxuu oranayaa hooyo ubadka ay ugu jeceshahay laakiin aabuhu sifada male aabaha ciyaalku waa u kala soocan yihiino ka tacliinta iyo baariga oo ana wuxuu ka tacliinta waxbarashada ku wanaagsan isagana u baariyana wuxuu oranayaa anu kana dhalay haddaan ninka iga eega buu oran laakiin ka ku dhaga adaga waxbarashadana ku liita kan ciidu raacayba garan meena buu oran ciidu yahayba kan garan meena anagu laakiin hooyadu sida maaha ka magaalada ugu liita ee ugu saaqadsan haday dhashayna laga dhaadhicin maayo inankaaga magaalada ugu akhlaaq xume waxay la soo taagan tahay waa ka ugu fiican magaalada ciyaalka magaalada iga baabiyay bay oran ciyaalka magaalada ilmaha iga haleeyay ka ugu fiican weyn inankaygu sifadaas hooyada iska leh marka waalidadeena waa inaan ka ducaysanaa waa inaan u khidmaynaa waa inaan ilaahay ugu dhowaanaa alzim rijlayha thumma aljanna nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo yidhi nabi allah jihaadka raba inaan ka qayb gale ka waran markaa buu nabigu ku yidhi laba waalidadaadi wax ma ka nool yihiin markaa buu yidhi haa labadoodii mid baa ka nool buu hooyaday baa ka nool markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yidhi soo jannada hooyada safarkaaga raalli ma ka ahayd mise kama yahay ma safarkaaga raalli kama yahay buu inaan la joogay jeclay markaa buu nabigu yidhi soo janna ma rabtid haa janna raba orodoo hooyada ku noqo lugteeda qabo oo iyada